taliyaha ciidanka militariga Somaliland Nuux Ismaaciil Taani ma sii hogaamin karaa ciidanka Somaliland xilli dhowrkii maalin ee la soo dhaafay ay dad shacab ah iska difaacayeen kooxaha huwanta ah iyadoo ay ciidanka Somaliland oo 30 kiiloomitir u jiray halka uu dagaalku ka dhacay aysan wax gacan ah qaadin ciidanka Somaliland ee hogaamiyo Nuux Taani oo dagaal looga saaray duleedka Laascaanood ayay wali daba socdaan ciidankii ka saaray Laascaanood ee ku dagaalamayay magaca SSC iyadoo ay dhinaca kalena dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay gudaha u galeen magaalada Boqlarkayn kooxaha huwanta ah halkaas oo ay khasaaro nafeed iyo mid maal ka geysteen sidoo kale inay shacabka Somaliland hub ka qaataan oo la dagaalamaan xogaga huwanta ah ee weerarka ku haya shacabka Somaliland waxa ka dhalan kara inuu hubka Somaliland gacanta u galo beelaha Somaliland iyadoo ay adkaan doonto in hubkaas xal loo helo sidoo kale ciidanka Somaliland oo muddo dheer jiray waxay ahaayeen ciidan qaran oo hal meel amarka ka qaata laakiinse hadda waxaa jira askar badan oo isaga tagay ciidanka Somaliland kuwaas oo sheegay inay u dagaalami doonaan reerkooda taasoo khatar ku ah jiritaanka ciidanka Somaliland waana kiis u baahan maarayn iyo xal degdeg ah dhinaca kalena madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo muddo dheer soo ahaa jamhad iyo askari qaran ayay dadku filayeen inuu sameyn doono isbedel hoggaanka ciidanka Somaliland ah kadib markii ciidanka Somaliland ay wax guul ah ka keeni waayeen dagaal socday 8 bilood oo aakhirkii ciidanka Somaliland looga qabsaday talisyadoodii ciidan marka la eego sida hadda waxay yihiin Nuux Taani ma sii hogaamin karo ciidanka Somaliland oo laga sugayo inay keenaan guul muuqata oo dagaal sidoo kale madaxweyne Biixi haddii uu san bareerin guul kama keeni doono dagaalka muddada ka socda gobolka Sool sidoo kale waxyaabaha ku cadeynaya inuu Nuux Taani sii hogaamin karin ciidanka Somaliland waxa kamid ah kala shaki iyo kala amar qaadasho la'aan muddo ka jirtay gudaha ciidanka Somaliland iyo sidoo kale inaysan shacabka Somaliland kalsooni badan ku qabin Nuux Taani ayadoo haddii uusan madaxweyne Biixi isbedel ciidan keenin laga cabsi qabo inay ciidanka Somaliland sii kala tagaan si walbaba ciidanka Somaliland waxa laga sugayaa inay jawaab ka bixiyaan magaxumada ka raacday dagaalkii ugu dambeeyay ee Laascaanood iyo weerarada ku socda shacabka Somaliland sidoo kale madaxweyne Biixi haddii uu rabo inuu guul ka gaaro dagaalka gobolka Sool waa inuusan waqti isaga lumin si joogida xukunka iyo sidii uga adkaan lahaa mucaaradka Somaliland iyadoo ay cid walba og tahay inaysan macquul ahayn inuu Muuse Biixi mucaaradkiisa ka adkaado dhinaca kalena uu guul ka keeno dagaalka gobolka Sool Biixi ayaa laga sugayaa inuu diiradda saaro dagaalka bariga Sool dhinaca kalena uu abuuro kalsooni iyo midnimo gudaha Somaliland ah fadlan daawade muuqaalkan gaarsii asxaabtaada